السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري سود وهذا هل كان نقل سعطان وعين تشو إيو عاتي ميديا. وحان دول استاجي دونا دور قضب هدي الله يدمر. أم كهر مرنا قضب كحالة كماركتا علادات كجرتي. دي سنة كهيد با دلك إثيوبيا. وحكتها عن إثيوبيا حالات وانتلانا. nimankii Tigrayga ahaa waa kuwa nimanka carcarta qaba saacatay waxa ka dhalanaya su'aalo dhowr ah sanad ka hor nimankii ilaa iyo gobolkoodii ama magaalada caasimadda ahayd Makalla maaragta laga saaray sidee ugu suurta gashay inay maanta ay maaragta soo haweystaan ama ay yiraahdaan wada hadal ma dooneen ama ay qabsadaan magaalooyinka istiraatiijiga ayagoo maaragta dhowr boqol oo kiiloomitir u soo jirsada caasimadda hami intaas la eegay waxay tahay waxyaalaha ka saaciday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xalay la hadlayay golihiisa wasiirada oo uu isugu yeeray shir degdeg aan caadiga ahayn ayuu ku sheegay in manka dagaalka ay ku jiraan dad aan u dhalan ama israahan aan ka soo jeedin dalka Itoobiya qaarkoodna uu ku sheegay inay yihiin dad cadaan ah waxa muuqata in nimanka Tigray TPLF inay haystaan maaragta hadwa la guuroon yahay hub iyo sanad iyo taageero caalami oo nooc walba isugu jirta iyo moral ay u hayaan dagaalka intaaba ayagu isugu jirta nimanka la yiraahdo nimanka Tigrayga meelaha loo soo marinayo ama ay u soo maraanba sanadaas waa meelo kala duwan laakiin maaragta ilaa ay hadeertaan aan meel gaar aan lagu farmooqi karin iyadoo ay u badan tahay in xuduudaha dhanka Suudaan ay ka soo galeen maaragta sanad nooc walba ay isugu jirta ama military aato ama kii shidaalka iyo waxyaalaha kale u baahnaayaha si guud dhulkooda ilaa hadda waxa ka socda dagaalo iyo duqeymo dadkoodii intii badan maaragta waxa weeyaan majaaca ayaa laga soo warinaya ama maaragta nafaqa daro haweenkii iyo caruurtiiba hase ahaatee nimankaas waa niman maaragta markaan meelay ahaataba inay maaragta guri laakiin waxaas maaragta xusid mudan in nimankan Tigray la yiraahdo ay adag tahay inay dib u xukumaan halka waxaas muuqata in Itoobiya isku reeqmi doonto isku baabi'i doonto nin walbaba uu maaragta kala tagi doonaan hase ahaatee taariikh bay leeyihiin nimankan markii sida hawshu ay u dhacdaba in maaragta ay sameeyaan ama xal dibadeed u yimaado kadibna Itoobiyada ay dib u soo noolaatadba halka maaragta Itoobiya sidaas ay ku qasan tahay xaaladda hubinta la'aanta ka taagan cid si gooniya ama wax gooniya ka sheegi karta ma jirto warbaahinta caalamka waa qaybsan tahay mid walbaba siyaasad ay iyadu damacsan tahay oo qaas ah ayay maaragta qaabkay rabtay u faaleynaysaa nimanka warbixinta ka imaanaysa dibadda ee banaanka imaanaysa ee nimankaas ka imaanaysa dalka Itoobiya ama gobolada dagaalka maaragta ka socda ama meelaha ay qabsadeen ama xaaladda sida ay tahay aad bay u yar tahay xogta ka imaanaysa cid gooniyo ogaan karta ayna ma jirto oo banaanka ka taagan waxa ogaan kara kaliya dadka dagaalada dhaxmarayaan iyo maaragta Tigray iyo nimanka la maxaaro iyo maaragta nimanka la yiraahdo Abiy Ahmed inta kala dadku waa waxay sheegayaan waa wax maaragta ayagu ay kala soo dhaxbaxeen wararkaas iska socda laakiin xog meeshaas qaas oo halka ku qotonta nin gooniyo ka bixin kara ama qof goon ama shirkad ama hay'ad warbaahineed ama warfaafineed ka warbixin karta halka ma jirto qodobka Itoobiya colaadeeda wixii ka soo kordha waan arki doonaa hadii aan leedmo aan raacino hadii aan leedmo qodobka xiga waxaan ka dhiganaynaa hadii aan leedmo ra'iisul wasaaraha waxaan ognahay inuu magacaabay guddi oo ku sheegay inay fulinayaan warqad ka soo baxday madaxweynaha Farmaajo ay lahayd maaragta madaxweynuhu ku lahaa xilligii aniga aan imid maaragta dalka taladiisa la qabsay 8 February 2017 ilaa xilligan dhulalkii la bixiyay ama la qabtay dawlad ama si sharci darro lagu bixiyay mid kale in ay waxba kama jiraan yihiin ay dawladda maaragta ay diiday oo madaxweynuhu halka u maray
ra-iisul wasaaraha asagoo halkaa ay uga bidhaantay kansho ama faa-iido uga faa-iideysan karo uu isleeyahay maaragtay ka faa-iiday halkaa ayuu warqad soo saaray. dhowr wasiir ayuu magacaabay. wasiirada waxaa kamid ah wasiirka cadaaladda, wasiirka maaragta arrimaha gudaha, wasiirka amniga, raggaa ayuu tilmaamay wasaaraha kusoo saaray maaragta warqadiisii dikreetara. hase ahaatee wuxuu kala kulmay dhaleeceyn fara badan. waxaase la yaab leh dad iyaguba la tuhmayaal ah oo la tuhunsan yahay inay maaragtay hore u qaateen ama ay u dhaceen hantidii dalkan u lahaa ama asadkii uu dalkan lahaa iyagu ku maqan yihiin. marka halkaa la joogo ummadda Soomaaliyeed waxay ku maamaadaan, marka Soomaalidu ku maamaada ruwaa ama libaax xilba ku rar. suurtagal maahan marka in maaragta dadka Soomaaliyeed adigoo maaragta iska dhigaya inaad maaragta hantidooda aad celinayso oo dhicinayso oo musuqmaasuq diidan tahay, aad ragga maaragta ku suntaysan musuqmaasuqa oo calaamad oo la og yahay guryaha iyo hantida ay haystaan oo la far muuqo oo magacyadana ummadda Soomaaliyeed ula baxday inaad tiraahdo musuqmaasuq iyo waxay maaragta ummadda Soomaaliyeed ka celinayaan hantidoodii maaragta musuqmaasuq ay la dirirayaan. ra-iisul wasaarihii soo saaray xogtaas waxaa xusid mudan iyadana in ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno maaragta beejajka iyo fadhiyada internetka ku leeyihiin sida maaragta ra-iisul wasaaraha beejka ra-iisul wasaaraha xafiiska ra-iisul wasaaraha beejkiisa meelaha ra-iisul wasaaraha xukuumaddu ay qabilsan tahay magacaabidii la soo geliyay in dib looga saaray markii dee ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad uga dhalay maaragta ay uga falcelisay. suurtagal maaha in ummadda Soomaaliyeed maanta la hor yimaado waxyaalaha noocaasa. ra-iisul wasaarahuna waa garwaaqsaday inuu qaldanaa. marka su-aalaha kale oo ummadda Soomaaliyeed isweydiinaysa waxaa ka mid ah arrintan uu ra-iisul wasaaraha ama shaqadan ama hawshan waajibaadkan uu siinayo wasiiradiisa waxay qaabilsan tahay waa dhul. waxaase xusud mudan inaan lagu soo darin wasiiradii la magacaabay ama dadkii hawshaas loo diray wasiirkii shaqadan lahaa ee ahaa ninka la yidhahdo wasiirka howlaha guud. taa iyaduna waxaa raacda oo mid labaad ah iyaduna maaragta xusid mudan in maaragta dhulka la sheegayo uu ku yaalo gobolka Banaadir. gobolka Banaadirna uu leeyahay hoggaan iyo duq Muqdisho iyada asagana aan lagu xusin ama mas'uuliyiinta gobolka aan lagu xusin Cumar Finish kow u yahay dikreetadaas ama warqadaas uu soo saaray ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay Roble maaragta dhulkaas madaxweynaha warqadiisa ha fuliya. waxyaalaha mugdiga gelinaya ra-iisul wasaaraha waxyaalaha ayaa ka mid ah ummadda Soomaaliyeedna in badan oo kamid dowladihii ka horreysay dowladana waxay ku suntantahay ummadda Soomaaliyeed ugu suntantahay dhul boob musuqmaasuq aan laga xishoon ama aan lala gaban ummadda Soomaaliyeed hortooda barqacad lagu kala qaybsado ama xataa lagu faano oo nin walbaba maaragta uu asagoo isdhahaya ku tooq maaragta dhul Soomaaliyeed ama maaragta dhulkii danka guud inuu gato. arrinta qodobkaana maaragta waa hadalhaynta dabcan waxaan rajeynaynaa haddii alla in ra-iisul wasaaruhu uu dib uga laabto arrintaa uu saxo uu dee maaragta fadeexada ay ka dhalatay. qodobkaana intaas ayaanu kusoo samaynaa haddii alla idmo. waxaa maaragta aan rajeynayaa inaad nagala socotaan ood nagu soo biirtaan عاتي ميديا أصحابتي إن أنا أسوق دبسان وإذا سلامي مركلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.